السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان خيارته وان سلامي درسينا wuxuu ku saabsan yahay qaabka loo sameeyo video template ama logo aad u qurux badan ama sidoo kale introyada kuwada ugu wanaagsan kaliya tay naga isticmaaleyna Microsoft PowerPoint markaan leeyahay video template waxaan u jeedaa hadii aad booqato YouTube-ka oo ku qorto how to make a template ama how to make a logo waxaad arkaysaa ama ku soo baxaya template ama logos aad u fara badan kuwaas oo lagu diyaariyay Microsoft PowerPoint waxaana loogu talagalay dadka leh channelska si ay u isticmaalaan hadaba Microsoft PowerPoint waxa uu ka mid yahay applicationada ugu dhisaanka ama qaabaynta wanaagsan sidoo kale waxa lagu diyaariyaa casharrada jaamacadaha iskuulada iyo waxyaabo kale oo aad u tiro badan hadaba ma baahnin inaan soo degsano software inooga baahan in aan waqti siino si aan ula qabsano ee kaliya waxaan soo furanaynaa Windows-keena inagoo ka dooranayna Microsoft PowerPoint si aan u sameeyno video template si professional ah hadaba ila daawo marka soo furto Microsoft PowerPoint ee ka doorato file tagto ee aad new tiraahdo si aad mid cusub ama page cusub aad u soo furato waad iska delete garanaysaa ama qaybtan yar ee kaaga baahan in aad wax ku qorto waxaad sameynaysaa control iyo plus si aad highlight-ka u saarto kadibna delete ayaad taabanaysaa kadib markuu ku soo baxo page-ka weyn ee balaaran marka ugu horeysa waxaad tagaysaa in aad soo geliso shapes-kan kadib shapes-kan way fara badan yihiin mid kamid ah ayaa dooranaysaa kulba waxay ku xirantahay qaabka aad sameynayso adigu tusaale ahaan waxaan soo dooranayaa tan afar geesta kadib halkan ayaan ku jiidayaa kadib markaan halkan ku jiido ee aan la ekaysiiyo page-kan iyo aan isla ekaysiiyo waxaan sameynayaa in aan color-ka tago kadib si aan color-ka aad doonayso aan ka dhigo tusaale ahaanba kan haddii aan u daayo imika uu yahay ama kaaba aan ka dhigo color-ka waxaan u baahanahay in aan soo geliyo ama aan design gareeyo oo aan u sameeyo qaabkii inooga muuqday video-gii in aan u sameeyo si aynu ka dhigno video dhammaystiran waxaynu tagaynaa in aynu tagno halkan ay ku qoranto shape effect kadibna aad ku dhufato present kadibna qaabka ay noqonayso ama ay soo baxayso tan ugu horeysa ama wajigan ugu horeeya uu soo baxayo in aad doorato waxay ku qurux badan tahay in ay ahaato nooca taagan waayo haddii ay tahay background video background-kiisa color-ka haddii aynu ku noqono aynu ka bedelo color-ka ay noocaaba ka dhigno color-ka isla tii oo kale ayaynu soo dooranaynaa kadib halkan ayaynu ku jiidanaa si aynu ugu sameyno video kadib taa markaynu doorno haddana waynu ku noqonnaa mid yar oo gaaban adigu kolba waxay ku xirantahay waxaad sameynaysaa qaabka ay yihiin ama qaabka aad la rabto in uu noqdo template-kaagu kadib intaa markaynu sameyno waxay inooga baahan tahay in aynu u sameyno dhaqdhaqaaq ama slideshow aynu ku darno waxaynu tegaynaa halkan ay ku qoran tahay transition-kan mid ka mid ah waad soo dooran kartaa tusaale ahaanba haddii aan kaa doorto oo aan idhaahdo preview iga sii preview tusaale ahaan iga sii siduu soo baxayo video-gaygu qaabkaas ayuu soo baxayaa ina leeyahay muuqaalka ugu horeeya kadib waxaynu sameynaa in aynu waxyaabahan ku dhex jira u sameyno iyagana dhaqdhaqaaq waxaynu tagaynaa animation kadib waxaynu odhanaynaa add animation si aynu u sameyno effect kadibna waxaynu dooranaa more entrance effect waxa weeye entrance-ga marka aad soo gelinayso effect inaad effect-ga sii kordhisiyo more exit effect marka ugu dambeeyo video-gu sii baxayo ama video-gu dhammaanayo qaabka ay ku dhammaanayso daba waxaynu dooranaa entrance transaction kadibna waad aragtaa qaabka markaa mid doortaba qaabka uu soo baxayo tusaale ahaanba kaa suunta aynu doorano kadib suunta markaan doorto okay ayaan odhanayaa okay marka aan idhaahdo halkan waxaa iska soo qoraya hadba transition-ka ma inta dhaqdhaqaaq ee ku soo biirtay halkan midkaas ayuu dul saaran yahay waxaanaynu u sameynay xabaddan lead-kan dheer kadib waxaad sameyn kartaa inaad kan kala dul tagta isagana sidoo kale aad tiraahdo add transition isagana waad soo dooranaysaa kadib markaad doorato okay waad odhanaysaa kadib kana highlight-ka ayaynu saarnaa kadib waxaynu tegaynaa add transition ama add effect kadibna waxaynu odhanaynaa entrance si aynu ugu darno isagana kadibna isaga markaynu ku darno kulba qaabka doonayso aad ka dhigto okay ayaad odhanaysaa intaa markaynu sameyno
waxaan tegaynaa in aynu nambaro u sameyno ama nambaradii hareeraha ka xigay in aynu u sameyno oo kale. Isagana waxaynu tegaynaa home ayaynu tegaynaa. Home marka aynu tagno waxaynu tegaynaa shapeskan ayaynu tegaynaa, kadibna isha yar baynu soo furanaa, kadibna waxaynu dooranaynaa kan ay ku qoran tahay nambaradu. Tusaale ahaanba kan haddii aan ku dhufto oon halkan ku jiido, kadib halkan markaan ku jiido kan aan yar yareeyo si meeshu inoogu leekaato, kan markaan ku jiido nambarka aan doonayo ayaan ku dul qorayaa halkaas. Number 1 ayaan ku qorayaa, kadib number 1 markaan ku qoro highlight-ka ayaan saarayaa, waan weyneynayaa si uu igu muuqdo nambarkaasi ama uu u noqdo nambar ballaaran. Kadib intaa markaan sameeyo copy ayaan ku sameynayaa isla isaga si aan kan kalena number ugu sameeyo. Kadib marka aan halkan dhigo waxaan ka bedelayaa nambarkan ayaan ku bedelayaa, waxaan ku bedelayaa 2 ayaan ku bedelayaa. Haddana copy-gii aynu sidinayeen paste halkan ku oranaa si aynu kana number ugu sameyno. Halkan markaan dhigo isla nambarka waan ka bedelayaa, 3 ayaan ku qorayaa. Intaa markaan sameeyo waxaad sameyn kartaa inaad color-ka ka bedesho oo hadba midba color nooca aad u sameyso. Kan casaankan inooga dhig, kana number. Bal aan haddaba aan idhaahdo preview iga sii videogan qaabka uu soo baxayo. Haddii aan ku dhuftay preview qaabkaas ayuu soo baxayaa, ma habaysna weli. Waxaan u sameynaynaa numberskan ayaa waxaan u sameynayaa in aan transition u sameyno marka uu line-ka koobaad soo baxo si ay isula socdaan. Kadib highlight-ka marka aad saarto waxaad tegaysaa in transition effect, kadibna marka aad doorato nooca aad doonayso in uu soo baxo okay ayaad odhanaysaa. Kan labaadna waad u sameynaysaa sidoo kale ayaad odhanaysaa more transition effect ayaad odhanaysaa. Isagana qaabkan baynu ka dhiganaa, kan kale waynu dooranaa isla sidii halkii ayaynu tegaynaa okay ayaan odhanaa. Haddaba si ay isku mar u soo baxaan kan iyo kan isku mar soo baxaan, kan iyo kan isku mar u soo baxaan, waxaynu tegaynaa animation bar halkay ku qoran tahay. Animation bar wuxuu ina siinayaa qaybtan ayuu preview inaga siinayaa sida ay u kala horeeyaan oo kale. Kadib kan ugu sareeya waxaan tegaynaa halkan ayaan dhiganaa si uu ka sare mar ula soo baxo. Kan labaadna halkan ayaad dhigaysaa, kan ku xigana intaynu qaadno aynu halka dhigno, kana aynu sidiisii u dayno. Kadib haddii markaan idhaahdo preview iga sii, number 1 soo baxaya, kadib number 2 soo baxaya, kadib number 3 ayaa soo baxaya. Inta markaan sameeyo waxaan ku dul qorayaa far ayaan ku dul qorayaa ama qoraal ayaan u sameynayaa. Ka doonaysa inaad qoraal ku dul qorto highlight-ka ayaad saaraysaa. Laba qaybood ayaad ku qori kartaa, inaad insert tiraahdo kadibna aad word art tiraahdo si aad u soo geliso qoraal. Laakiin waxaa ka habboon in aad isaga qoraal ku dul sameysan aad u qorto, kadibna eedan ayaa taabanaysaa si uu qoraalku kuugu qormo halkan uu kuugu qormo. Kadib marka uu kuu soo baxdo waxaad qoraalka ayaad ku qoraysaa. Tusaale ahaanba ku soo dhawaada ayaan odhanayaa. Intaa markaan qoro highlight-ka ayaan saarayaa si aan u ballaariyo ama aan u weyneeyo. Kadib farta ayaan la ekaysiinayaa inta aan ugu talagalay ama inta aan doonayo. Kadib intaa markaan farta la ekaysiiyo kana waan dul tegayaa, waxaan ku dul qorayaa fartii oo kale. Waxaan leeyahay kanaalkeena magaciisa tusaale ahaanba ayaan ku qorayaa. Kadib markaan ku qoro isla sidii oo kale highlight-ka ayaan saarayaa, farta ayaan weyneynayaa. Kadib kan waan dul imanayaa, yar ayaan taabanayaa, kadib wixii aan doonayaa ayaan ku qorayaa markaas. Kadib isla sidii highlight ayaan saarayaa si aan farta u weyneeyo. Kadib intaa markaan sameynay imika haddii aan idhaahdo preview iga sii videogan, waad aragtaa qaabka uu soo baxayo in uu qaab u soo baxayo isku xiga oo aanu kala horreynayn. Ma aha intan oo keliya, intan waa tusaale ahaan, laakiin waxaad ku samayn kartaa video aad u qurux badan ama template professional ah. Kadib intaa marka aad qorto waxaad u samayn kartaa oo kale in uu dhaqaaq ama exit-ka marka uu ugu dambeysa uu sii baxayo ama uu dhammaanayo videogu in aad u sameyso exit oo kale. Tusaale ahaan kan koowaad ayaad dooranaysaa, marka aad doorato waxaad tegaysaa arkay, kadibna waxaad tegaysaa more exit effect, kadibna qaabka uu ku dhammaanayo ayaad halkan ka dooranaysaa. Tusaale ahaan qaabkaas oo kale ha u dhammaadaan leeyahay. Kadib okay ayaan odhanayaa, kana sidoo kale waan odhanayaa. kadib markaan doonayo aan doorto, kadib aan okay idhaahdo isla sidoo kale kana dhammaantii sidaas ayaad ugu wada dhammaynaysaa. Laakiin marka videogu aad damacday in uu dhammaado qaabka uu soo baxayo, imika tusaale ahaan haddii aan idhaahdo preview iga sii, waad aragtaa qaabka uu sii dhammaanayo. Isla dhammaantood sidaas ayaad ugu wada dhammayn kartaa. Haddii aynu export idhaahdo aan geeyo computer-ka,
waxaad tegaysaa hal save as kadibna browse uma oranaysaa aynu magac u bixino BBE da aynu u bixino kadibna halkan aynu ka doorno video kadibna aan save idhaahdo intaan hor save garan meesha aad doonayso in aad ku save garayso ayaa muhiim in aad doorato kadibna save aad tiraahdo kadibna aynu iskaga soo baxno qaybtan oo aynu tagno halkii aynu ku save garanay videogeena documentiga aynu ku save garanay kadib documentiga marka aad tagto meeshii aad ku save garaysay aad soo doorato waxaa inoo soo baxaya videogeenii oo halkan inagu jiro haddii aan double click siiyo sidaad u jeedo waxaa inoo soo baxay videogeenii oo ah video caadi ah haddii aan YouTube ka soo upload garayo si caadi ah ama si toos ah ayuu soo gelayaa qaabkan iyo qaabab ka wanaagsanba waxaa loogu diyaarin karaa video slideshow ah adigoo ka dhigaya intro ama outro ama wixii kale aad la jeceshahay casharkeena intaas ayaan kusoo koobayaa fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe dheh wixii su'aalaana commentiga nooga soo qor wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu